asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waad salaamantihiin meel walbaad joogtaan si walbaad ii maqlaysaan magacaygu waa cabdibood xasan nuur kuna soo dhawaada cashirkeena hige ee ku saabsanaa sidii laiskugu daraa fractionka oo weliba qaybta ee hooseyaha kala duwanta shalay waxaa idiin soo dhigay sidii laiskugu daraa fractionka hooseyaha kala duwan yahay islamarkaana marmarka qaar hooseyaha iskaga mid yihiin shalay waxaa idiin soo bara hal wad waxaan idiin sheegay inay jiraan wadooyin fara badan maanta waxaan qaadan doonaa wadadii labaad laakiin intaana wadadii labaad aanan dhigin waxaynu u baahannahay si aynu u dhigno wadada labaad wado kaleetood oo aanu soo marno wadadaasaa soo marayna waxaa loo yaqaanaa LCM sidaas darteed waxaa muhiim ah kuwid inaad barato LCM maadaama wadada labaad ay isticmaali doono LCM haddii aad LCM aad barato aad ay kuu fudaan doontaa inaad ka shaqayso fractionka oo siisii kala duwan yihiin laakiin balse waxa ugu muhiimsanayaa waxay tahay inaad barato LCM-ka maantana ayuu ku saabsan yahay cashirkeena LCM maxaa laga soo gaabiyey LCM sidee loogu helaa hadda mawduuceena maanta ayaan ku baran doonaa insha allah balse intaasi ka hor aynu qorano mawduuceena haddeerta waxaa noo qoran LCM maxaa laga soo gaabiyey haddii dhaho waxaa laga soo gaabiyey alta waxaa laga soo gaabiyey lowest sida waxaa laga soo gaabiyey common mta waxaa laga soo gaabiyey multiple lowest common multiple alta lowest laga soo gaabiyey sida common laga soo gaabiyey mtana multiple laga soo gaabiyey marka si aan u barano LCM marka hore waxaa u baahan tahay inaad ogaato goormee tiro laba loo qaybin karaa goormee tiro saddex loo qaybin karaa goormee tiro shan loo qaybin karaa saddex sina ogaato waa muhiim goormee tiro laba loo qaybin karaa hadii loo goormee tiro laba loo qaybin karaa hadii loo waa iska fududahay waa waxaa dhigaysaa haddii xisaabta dhaban tahay numberka lagu siiyo hadduu dhaban yahay xisaabta laba waa loo qaybin karaa adoona wax soo baaqi ah uusan kuu soo hari doonin dhaban markuu yahay maxaa ula jeedaa dhaban markuu yahay waxaa ka wadaa markuu saas u dambeeyo ama laba u dambeyso ama afar u dambeeyo ama lix u dambeeyo ama sideed u dambeeyo intaasi haddii u dambeyso xisaabta laba waa loo qaybin karaa iyadoona soo haraynin wax baaqi ah tusaale ahaan 12 oo kaleetood maxaa u dambeeya fiirinaysaa laba u dambeyso laba haddii u dambeyso laba waa loo qaybin karaa waxaa lagu dhahay 18 oo kaleetood waxaa u dambeeya 8 laba waa loo qaybin karaa iyadoo soo haraynin wax baaqi ah iyadoona wax baaqi ah aanan soo hari doonin insha allah laba meeshaas ugu baxan laba meeshaas loo baxan korka noo saar waxaa kaloo loo fiirsaa 5 5 goormeetir loo qaybin karaa 5 iyadaa uu fududbo shanna iyada uu fududbo waa haddii ay u dambeyso eber ama 5 labadaas number haddii u dambeyso xisaabta waa loo qaybin karaa 5 iyadoo soo harin wax baaqi ah tusaalaha haddii loo 20 oo kaleeto maxaa u dambeeyo eber ayaa u dambeeyo soomanaha 5 waa loo qaybin karaa waxaa u 45 lagu dhaha maxaa u dambeeyo 5 waa loo qaybin karaa 95 5 waa loo qaybin karaa wax u dambeeya fiilna 5 ma u dambeeyo ama eber u dambeeyo 5 waa loo qaybin karaa laba waxaa dhaanay markay tahay dhaban ee tahay markay tahay dhaban 5 maxaa dhaanay markay u dambeeyo eber ama u dambeeyo 5 saddexaas waa harta marka saddex goormeetir loo qaybin karaa diluna ila uu fudud labadaas baarad ila uu kasii fudud maxaa sameynaysaa tirooyinka isku daraysaa maxaa sameynaysaa tirooyinka aad isku daraysaa maxaa ka wada isku diray soo number lagu siiyo 12 kale tood lagu siiyo number lagu siiyo 12 kale tood maxaa sameynaysaa laba muu qaybsantaa dhaha u qaybsantaa laba maxaa yeelay dhaban waay laba u dambeeyso adan dhaban waa leeyahay saddex muu qaybsantaa waxaa sameynaysaa labadan tiro isku daraysaa labada tiro isku daraysaa marka isku darto haddii ay kuu soo baxdo waaya haddii haddii kuu soo baxdo saddex ama ay kuu soo baxdo lix ama ay kuu soo baxdo sagaal saddexaas number haddii ay kuu soo baxaan saddex waa loo qaybin karaa iyadoona soo harayn wax baaqi ah maxaa ka wadaa hal iyo laba isku dar maxaa soo baxay saddex soo baxay 6 saddex waa loo qaybin karaa waxaa la 45 oo kale tood 45 isku dar leedahay 45 isku dar waa 9 waa loo qaybin karaa 9 haddii soo baxay waa loo qaybin karaa waxaa lagu dhahay 33 oo kale tood 3 isku dar leedahay waa 6 waa loo qaybin karaa marka waxaa laga yaabaa mararka qaar inay number badan ay imaadaan ama tusaale number kale tood oo ah 17 oo kale tood hal iyo toban isku dar leedahay 8 looma qaybin karo sababtoo anaga waxaa rabnaa markaa isku darno inay noo soo baxo saddexdaas tiro midkood inay noo soo baxda rabna maxaa rabnaa 3 iyo 6 iyo 9 inay soo baxo haddii wax kale soo baxaan saddex ma loo qaybin karo baaqiyaa imaan doono ama jiji waa soo geli doono saddex ma loo qaybin karo goormee loo qaybin karaa isku dar markay u dambeyso saddex ama 6 ama 9 markaa isku dartan wixii soo bax waay markay u dambeyso wixii soo bax markaa isku dar waxaa laga yaabaa marka qaar number dhan inuu siiyo oo adigan aan wareerto tusaalahaan number 6 kaga dheer oo kale todoba dhahay
numberka hadda 456 320 waxaa lagu dhahay 3 ma loo qaybi karaa okay 3 ma oo isku dirin ma haba isdhimin baa okay 4 5 ku dar waa 9 9 6 ku dar 15 15 3 ku dar 18 18 2 ku dar 20 2 aan ku dar 22 soo baxsan ha 22 laba tiro mar baan laba tiro mar 22 laftirkeed isku soo dar okay 22 markaas ku darta xasoo bixi doon 3 tiradan 3 waa loo qaybi karaa iyadoo soo hari doonin wax baaqi ah iyadoo soo hari doonin wax baaqi ah halkaas waxa uu baxnay goormeed loo qaybi karaa goormeed 3 loo qaybi karaa goormeed 5 loo qaybi karaa hal yartaan la qaadano example keeni kood okay halkaani waxa uu qoran example 1 ama tusaaleeni kood waxa uu dhahay meesha cariiri u ah marka command-iga ama amarka koranka sheegaya waxa uu waxa soo heshaa LCM-ka ay wadaagaan labada tiro ee kala ah 5 iyo 4 okay 5 iyo 4 5.4 okay marka calaamadaas waa muhiim meesha ugu muhiimsan waa dii kala calaamadaas meesha ka bixis 4 iyo 5 xisaab okay laakiin calaamadaas meesha la dhigto muhiim LCM soo hadii ku dhahay xariiq yarsan uu sameeyo okay xariiq yar sidaas uu sameeyo marka uu sameeyo koodii shardiyaal jir marka shardiga wada raacis waxay tahay wax loo qaybo ku jira waa ku jira muha u qaybi okay wax laba u qaybsamaa waay waxa leeyahay wax 3 u qaybsan ma jira okay wax oo 3 u qaybsan ma jira waa helaha u qaybi waa weysmuha wax shan loo qaybi karo ma jira waa heshay u qaybi waa weysay iska dhaaf okay 6 waxa uu sii qaybinaysaa 7 iyo sasa uu sii soconaysaa okay okay waxa leenahay labadan number wax laba loo qaybi karo ku jira waa ku jira waa ujeeda number 4 ku jira meesha okay number 4 laba loo qaybi karo maxaa yeelay laba waa okay labada number markay san tahay midkood badii loo qaybi karo maalinta u qaybi labada okay kan kale iska dhaaf iska xanaaq dooro inta loo isaar okay laba markaas shan loo qaybi muu qaybsanto way xanaaqi adii xanaaq hoos iyo iska soo daweyn iyo ooyis okay 4 loo qaybi leedahay waa labo okay maxay sameeyay 5 alab u qaybsan muu qaybsanto adii u qaybsamin hoos kan iyo wax dhaqsan waliba okay 4 hadana soo qaad loo qaybi laba soo baxayso markay sidaas ay soo baxdo hadana waxa leedahay labada number ay soo baxday wax laba loo qaybi kan ku jira waa ku jira maxayna laba meesha taasho oo inta ah okay laba uu qaybiyaa 5 laba u qaybi muu qaybsanto iyo wax dhaqsan waliba ooynayso soo daji okay laba u qaybi waa u qaybsantaa hala soo bixi doono okay hadarta imaam markaa wax loo qaybi karo meesha ku jira maya laba wax loo qaybi karo meesha maxay labada number kiisi waa okay laba bad ku tur okay laba daaweyne maxaa fiir jirnay number 3 okay maxaa fiir jirnay number 3 loo qaybi karo meesha miyuu ku jira leena okay ku jiro okay number 3 haduu ku jiro number 5 loo qaybi karo ku jira leena okay number 5 loo qaybi karo ma ku jiro waa ku jiro maxaa yeelay 5 ku jirto meesha okay 5 uu qaybi okay 5 uu qaybi 5 uu qaybi waa halkaan isku soo deji okay marka xisaab meeshaas ay gaarsiiso oo hal iyo hal ay soo baxday waxa leedahay lowest common multiple oo LCM loo yaqaan wuxuu la mid yahay leedahay intaan tira isku soo dhufanaysa waxa sameeysaa intaas tira isku soo dhufanaysa waxa leedahay 2 oo lagu dhuftay 2 oo lagu dhuftay 5 okay waxa la sii mid tahay 2 ku dhufo 4 5 ku dhufo waa 20 halkaasi waxa noo eg LCM example keeni kood labada LCM wadaagaan number 5 iyo number 4 wuxuu noqday 20 okay intaas number isku dhufo 2 ku dhufo 4 5 ku dhufo waa 20 waxa isku soo noqon doonaa example keeni labaad insha Allah halkaani waxa uu qoran tusaaleeyay labaad waxa rabnaa inaan soo LCM wadaagaan number 12 number 3 iyo number 8 intaba okay numberada badan karaan dib ma adii shuruudaha fiirneebs wax la qaybsan ku jira wax 3 u qaybsan ku jira wax 5 u qaybsan ku jira okay waxa noo fiirnaysaa wax laba ku jira loo qayb karan ku jira waa ku jira maxaa yeelay laba number wali ku jirto oo dhaban ah okay uu qaybi tumiilaba laba u qaybi waa 6 3 laba u qaybi muu qaybsanto hadii u qaybsamin soo daji 8 laba u qaybi waa 4 okay haddana waxaan leedahay wax laba loo qaybi karo meesha ku jira waa ku jira wali waa ku jirta okay 6 laba u qaybi leedahay waa 3 laba u qaybi muu qaybsanto hadii u qaybsamin hoos leeyahay idoo xanaaqsan wali okay 4 laba u qaybi waa 2 okay wali waxa leedahay wax laba loo qaybi karo ku jira meesha waa ku jira number dhawana meesha u dhiyaa okay laba u qaybi 3 laba u qaybi muu qaybsanto 3 laba u qaybi muu qaybsanto laba laba u qaybi
okay number laba loo qaybi karo meeshaan ku jiro hadartaa may waxa ay ku ilkisiin numberada way xanaaqeen okay number laba muhiim ah number 3 loo qaybi karo ku jiro meesha haa ku jiro okay 3 u qayb waa hal okay 3 u qayb waa hal halkaasna iska soo deji marka meeshaas gaarto oo meeshaan aad hal aad ka dhigto waxaa leedahay lowest common multiple aa leedahay LCM wuxuu mid yahay intaas tir isku soo dhufanaysa okay intaas tir isku soo dhuf waxaa leedahay lagu dhuftay 3 lagu ku dhufo waa 4 lagu ku dhufo waa 8 3 ku dhufo waa 20 halkaasi waxaa kasoo bixi doona 24 example keeni labaadna meeshaas ayuu ku yahay waa hadduu alla yiraahdo waxaan rajeynayaa inaan isku arki doono muuqaalka kiisiga oo noqon doono insha Allah sida la isku daraa additionka oo fractionka adigoo isticmaalaysid LCM insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen oo britola aad fahmi doontaan sida la isku daraa LCM isticmaali doontaan bari LCM buu soo celi doon maxaa yeelay hal cashar dhinac ka dhigay LCM-ka inaad fahanteena waa rajeynayaa 90% insha Allah waxaan alla ka baryayaa inuu nagu kulmiyo jannadii firdawso insha Allah